oday aad iyo aad nabadoon u ah oday u ah waayo aragnimo iyo khibradna u lahaa golo shacab hogaamintiis ayuu ahaa khibraddaas iyo waayo aragnimada u lahaa iyo dulqaadkiisana waa midda lagu yiri waa golihii shacabka ugu muxuu ahaay habboonaa ansixinta shuruucda nambarka shuruucda la ansixiyey waxtarkooda dastuurka iyo hogaaminta muddadaas oo golahaasi aanay khilaafyo waaweyn oo culus iyo colaado waaweyn aanay ka dhex dhicin howlihiisa ay si deganaanshiyo badan ku jirto ay u socdeen waxaan rajaynaynaa insha Allah bedelkiisana bedel khayr qaba inuu noqdo hadii alla yiraah oo golaha si hogaamiya inta kadib dalka Soomaaliya walaalayaal waa wada ognahay dadka meeshaan fadhiya inta badan golihii shacabka iyo aqalka sare ka koobmaan sharci dejinta dalka iyo maxaan ku raadaa golihii wasiirada intaba xogogaal ayaad u tihiin wadadii dheereed ee la soo maray safarkii la soo galay wadadaas dheer oo aad iyo aad wada uu culus ahayday laakiin culays kasta iyo maxaan ku raadaay daal kasta oo laga soo maray maanta aan laga qoomameynayn ee lagu farxsan yahay wixii la soo qabtay maalintii baarlamaanka golaha shacabka khaasatan aan dhaho ama labada aqal ee baarlamaanka la dhaariyay ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay yihiin loo dhaariyay dalku sidoo ahaa iyo maanta sida uu yahay muuqaal ahaan gudaha haday tahay iyo dibadda muuqaalkiisa ah haday tahay intaba waa la wada garanayaa dhismayaal iyo infrastructure-ka ama maxaan ku raadayay waxa ka qabsoomay dawlad goboleedyada waa la garanayaa siyaasaddu waa iska dhib badan tahay kala ra'yi duwanaanshiyo siyaasadeed markastuu jira waana soo jiray dabcan haddana waa sii jiri doona laakiin waxay ahayday arrin aad iyo aad looga xumaado in ra'yiga dadka qaarkii ay isku dayeen in ay ku cabiraan ra'yigooda si aan habboonayn oo xoog iyo qore caaradii ay ku jirto ayadoo walaalayaal laga daba leeyahay waa la garanayaa walaalayaal 4 sano ee la soo dhaafay inta juhdi iyo dadaal ee dawladda federaalka ah iyo hay'adaheeda kala duwanba ku bixiyeen kala duwan aragti kala duwanaanshiyo kasta oo siyaasadeed oo jirta in si nabada lagu xalliyo inaan annagu meel kasta iyo maqaam kasta oo title